madaxweynaha Soomaaliya ee muddaxileedka uu ka dhamaaday Farmaajo ayaa maqaal uu ku qoray jariirada lagu magacaabo Foreign Policy ee Mareykanka laga leeyahay waxa uu ku sheegay in aan lagu eedeyn karin marnaba dib u dhaca doorashada Soomaaliya. Mucaaradka Farmaajo iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ayuu ku eedeeyay in 4 sano ee uu xilka hayay uusan waxba ka qaban sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah isla markaana uu ku marmarsiyoonayo arrinkaasi. waxa uu ku dooday in tan iyo markii xukunka uu la wareegay February 2017 ay ka go'aneed in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah si shacabka ay u helaan awood ay ku doortaan cidda ay doonayaan. Farmaajo ayaa yiri doorashada Soomaaliya dib ugama dhicin in aan doonayo sii haysashada xukunka, balse waxa arrinkaas sabab u ah khilaafka kala jabiyay dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah. sidaas waxa uu sheegay jariirada lagu magacaabo Foreign Policy ee laga leeyahay Mareykanka. Madaxweynaha muddaxileedka ka dhamaaday ayaa tilmaamay in khilaafka uu salka ku hayo rabitaanka dowladdiisa ee ah in dalka ay ka dhacdo doorasho ay shacabka codkooda dhiibtaan iyo maamul goboleedyada oo uu ku sheegay in ay rabaan doorasho dadban oo awood badan siinaysa iyaga. waxa uu yiri waxaa la joogaa xilli ay beesha caalamka weydiin lahayd maxay tahay sababta odayaal beeleedyo kooban iyo madaxda maamul goboleedyada la haystayaal uga dhigtaan shacabka Soomaaliya 4 sanaba mar. maxay tahay sababta ay dad kooban u aaminsan yihiin shacabka malaayiinta ah ee ay sheegaan in ay matalaan, ayuu yiri Farmaajo. madaxweynaha muddaxileedka ka dhamaaday ee Farmaajo ayaa sidoo kale Foreign Policy jariirada waxa uu sheegay in uu ka xun yahay in uu aqbalay heshiiskii doorashada ee 17 September 2020 la gaaray, balse uu ka socon waayay madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland. Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayaa marar badan beeniyay eedeyntaasi, waxaana ay sheegeen in dhanka Farmaajo uu ka fashilmay heshiiska oo uu ka socon waayay isaga oo ka xun heshiiska la gaaray. shir ay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka ah ay isugu tageen magaalada Dhuusamareeb maalmo uun ka hor inta aan la gaarin February 8 oo ku ekeed muddaxileedka Farmaajo ayaa fashilmay, waxaana dhinacyada uu midba midka kale ku eedeeyay natiijo la'aanta shirka uu ku soo dhamaaday. arrinta gobolka Gado oo ay ahayd arrinta ugu adag ee caqabadaha ku noqotay shirka in aan heshiis laga gaarin ayaa shirka ku keentay in lagu kala tago. khilaafka gobolkaas ee u dhaxeeya dowladda dhexe iyo Jubbaland ayaa soo jiitamaya tan iyo doorashadii madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, taas oo dowladda Soomaaliya ay diiday inay aqoonsato natiijadii ka soo baxday oo ay ahayd in xilka uu ku soo laabtay madaxweyne Axmed Madoobe haddana uu ka yahay madaxweynaha maamulkaasi. Jubbaland iyo dowladda federaalka ah ayaa labaduba aragtiyo kala duwan ka qaba qodobkaasi ku saabsan arrinta gobolka Gado. dowladda federaalku waxay ku adkeysanaysaa in tanaasul badan ay ka sameysay arrintaasi, balse dhanka Jubbaland aan wax tanaasul ah laga sameynin. lama sii wadi karo doorasho dadban, ayuu Farmaajo sidoo kale u sheegay Foreign Policy. madaxweynaha muddaxileedka ka dhamaaday ayaa ku dooday in hanaanka doorashada dadban uu yahay midka la haray dimuqraadiyadda Soomaaliya isla markaana aan la sii wadi karin. waxa uu yiri in heshiis laga gaaro doorashada Soomaaliya ayaa ka dhigan in laga qanciyo dhammaan saamileyda xilli kasta iyo arrin kastaba. doorashooyinka dadban ma aha kuwo u wanaagsan Soomaaliya ama la joogteyn karo. sidaasi Farmaajo ayaa ku yiri jariirada Foreign Policy ee Mareykanka laga leeyahay. mucaaradka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa Farmaajo ku dhaliilay in uusan dooneynin doorasho balse uu rabo muddo kororsi. markii uu golaha shacabka 12 Abriil ansixiyay xeerkii jihaynta doorashada oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah kaas oo qaadanayay muddo 2 sano ah sida guddoonka golaha shacabka uu sheegay, waxaase arrintaasi ka dhashay rabshadaha hareeyay magaalada Muqdisho. Farmaajo ayaa rajo ka muujiyay sida lagu wado 20 bishan shirka looga arinsanayo doorashada Soomaaliya, isaga oo jariirada u sheegay in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu hogaamin doono hanaanka doorashada Soomaaliya. haddaba hadallada Farmaajo u sheegay Foreign Policy maxaa kaga baxay? Maxamuud Alxaaji.